waqtigii wuxuu noqday hal bacad lagu lisay. ilaahayna wuxuu leeyahay tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan wa asudda faqraka wa ilaa tafcal mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka. ilaahay baa le addoonkaygiiyow cibaadadayda iyo taacadayda iyo diinteeda wakhti u samee, aniguna maaragtaan qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa ghinan nafsi, baahidaadana anigaa daboolaya baa ilaahay kaa yidhi. wa ilaa tafcal haddaad sidaa yeeli weydo ood samayni weydo mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka baa ilaahay yidhi. 24 saaca mashquul baan kaa dhigay oo biisi baan kaa dhigayaa, baahidaadana ma daboolayna baa ilaahay yidhi. albaabada faqriga laga dabooli maayo. haddaan wakhtigeenna qaybinno, saacadna aan u dayna kasbi xalaala, saacadna masaajidda aan ku camirno, oon aakhiradeenna ka fikirno, oon diinteenna ku baranno, oon diinteenna ka fikirno, oon dhallinyarada walaalaheenna masaajidda ka maqan aan u murugoonno, oon u tagno oon gacanta soo qabanoon masaajidda keenno, saacadana aan ku camirno maaragtaanay reeraheenna iyo ubadkeenna aan siinno, nolosheennu qiimo yeelanaysaa markaas. tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan baa ilaahay yidhi. laysa alghinaa can kahrati alcaradi walaakina alghinaa ghina nafsi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. ghinadu ma ahin xoolo badan iyo hanti badan oo la yeeshee, waa ghina nafsi, waa naftaada oo deeqtooda weeyaan. ghinadu qalbiga oo kuu xasila. qalbiguna muxuu ku xasilayaa? aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah, alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi. kuwa ilaahay rasuulka rumeeyey quluubtooda waxay ku xasilaysaa ilaahay taacaddiisa. alaa ilaahay baa la intabihuu, baraarugoo dhegihiinna fura. qalbiga bini aadamku wax kaloo ku xasilaya male baa ilaahay yidhi, ilaa ilaahay taacaddiisa mooyaane. salaadda markaad tukatid qalbigaaguu xasilayaa. maskiidka markaad saacad fadhiisato qalbigaaguu kuu xasilayaa. juz qur'aana haddaad tadabbur iyo tafakur aad ku akhrido qalbigaaga uu kuu xasilayaa. xalaqaat alcilmi haddaad fadhiisato ood culammada la fadhiisato oo diintaada aad wax ka barato, qalbigaaga waa kuu xasilayaa. xalaqata dacwa haddaad fadhiisato oo dadka walaalaha ee muslimiinta aad ku soo qaaddo jawlaad iyo ziyaaraad. man cada mariidan aw zaara akhan lahu fi اllaah naadaahu munaadin bian tibta wataaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati manzila. qofka qof buka ilaahay dartii u buuqday ama qofay diinta islaamka walaala ku noqdeen ilaahay dartii u ziyaartay buu nebigu yidhi, samada ayaa looga dhawaaqaa oo la yidhaahdaa waad wanaagsanaatay, socodkaagaasna uu wanaagsanaaday, jannadana manzil baa lagaaga diyaariyey baa lagu odhanayaa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. qalbigan wax kale ku xasili maayo, lacag ku xasili maayo, dhoofna ku xasili maayo. dad baa dhoofun ka fikiraya, dhoofun bay ka haysataa. dad baa tacliinu ka fikiraya, tacliintan maadiga, oo tacliintii diintoodana aan u arkayn in wax lagu cunayo. qalbigaagu ku xasili maayo ashyaada iyo maadada kuu badatee, wuxuu qalbiga ku xasilayaa oo ilaahay macrifadiisa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. aqim isalaata lidikri. salaaddii baa lagu leeyahy waxaad ku ogtaa ilaahay dikrigiisa. waladikru llaahi akbar. ilaahay dikrigiisa ayaa weyn. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin fadakir inamaa anta mudakir. qur-aankii waa dikr, nebi maxamed waa mudakir, salaaddii waa dikr. inamaa jucila asacyu bayna asafaa walmarwa waramyu ljimaar liiqaamati dikri illaahi buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam. sacyigii marwe iyo dhexdooda la sacyinaya safa iyo dhagaxa la tuuranaya buu rasuulku yidhi, iyo tima xiirasashada ay xujaydu timaha xiiranayaan, intaba waxaa looga dalnayahay buu nebigu yihi ilaahay xuskiisa in lagu ogo. gaayat lcibaada waa dikri weeyaan, in qalbigan mar walba uu noqdo qalbi ilaahay jala wacalaa mar walba xasuusanoo ilaahay ku tacalluqsan. fii salaatika, salaadda dhexdeeda ilaahay ku xasuuso, aqalkaaga ilaahay ku xasuuso, ubadkaaga ilaahay ku dhex xasuuso, meheradaada ilaahay ku xasuuso. warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi. toddobada hadhka ilaahay loogu hadhayn doono maalinta hadh kale una jirin, hadhka alla mooyaane waxaa ka mida buu rasuulku yidhi, nin maaragtaane mar walba qalbigiisu uu ku xasilooniya, nin mar walba
qalbigiisu ku tacalluqsan yahay masaajidka ilaahay. cabdullaahi bn rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay. markaasay aragto way la oyday iyadiina. markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa? markaa bay tidhi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi. markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya. anugu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro, hadduu jirase jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi. uma intaa kadibna nunaji aladiina ataqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonnaa baa ilaahay yidhi, waan nabadgelin doonnaa. wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya, daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi. dhabtuu ku jifaa innaka maanta khafladda inagu dhacday, qaari sood fiican oo qur-aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeenni xisaabinaynaa oon meheradeennii ka fikiraynaa. iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen. nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey, waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducadaa xasuusta nebiga ayaa yidhi akhristee bismi illaah allaahuma jannibna shaytaan allaahuma jannibna shaytaan wajannib shaytaana maa rasaqtana. markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan besigaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi. halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar. waa lay sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi, taasaa ii kala caddayn. zuraarata ibni abi awfa raximahullah taabici buu ahaa, imaam almasjid buu ahaa. salaat alfajarkii buu tujinayay dadka. rakacaddii hore markuu ku furfurtay suuratu alfaatixa faاftataxa suurata almudathir markuu gaadha faidaa nuqira fi الnaaquur fadalika yowmun yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir. halkaa markuu gaadhay khara cala alardi maqshiyan calayhi faxumila ilaa beytihi wamaata. gurigiisii baa loo qaadoo loo xambaaray sidii buuna ku dhintay. faidaa nuqira maalinta maalin baa iman doonta baa ilaahay leeyahay suurta aan afuufi doonno waa maalin culus baa ilaahay yidhi oo gaalada dushooda kuma fududo, yowma albacthi weeyaan. aayaddaa markuu gaadhay dhulka ayuu ku dhacay, dabeedna meydkiisina gurigaa loo qaaday. sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biljanna waa ninkii nebi maxamed uu lahaa low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar. qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi. xawraa baan ku yidhi xawraaye qasrigan ayaa ilaahay ugu talagalay. waxay tihi nin quraysh ka dhashaa nin carab ka dhashaa loogu talagalay. anigaa carabiya ma cid kalaa? ha jilibka quraysheed buu ka soo jeedaa. anigaaba qurayshiya ma cid kalaa? ha ummadda muxamed buu ka mid yahay. anigaa muxamede ma cid kalaa? ha waa cumar binu khadaab bay ku tidhi. cumar aad garanaysaan maqaamkiisa iyo darajadiisa, khayru nnaasi buu ahaa bacda annebiyiina waalmursaliin ilaa abi bakr sidiiq mooyaane. khalqiga kale ilaahay abuuray baa la yidhi nebiyada iyo mursaliinta iyo abubakr sidiiqunbaa ka fadli badnaa. kaasaa maskiidka nebiga soo galay, wakhta saxar buu soo galay. wuxuu arkay inan yaroo shaaba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaane suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa. markaasuu cumar istaago uu dhegaystay watuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almasduur ina cadaaba rabbika lawaaqic. halkaa markuu maraya cumar dhulku ku dhacay. faxamaluuhu ilaa beytihi gurigiisaa loo xambaaray. 20 maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi. dadku kamaysan warqabin xanuunka cumar meeshuu ka yimidina kamaysan warqabin. qulubtooda ayaa noolaato jilcday. innaga zamankeennan calooshaa laga shaqaynaya waa zaman albutuun. butuun maxaan cunaa, maxaan fuulaa, maxaan qaataa, halkeen galaa, maxaan dhalaa, halkeen tagaa, xaggee wax ka cunaa. waxa adiga laguma diran, adiga waxaa lagu dirtay keliya cibaado. calayna an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad. nin saalixiinta ka mid a lagu yidhi dalka intaad ka maqnayd ma ka warqabtaa waxa isbeddel dhacay? maya kama warqabee ii sheega buu yidhi. waxaa la yidhi qad halaa alcaysh, noloshii baa noqotay haali.
sicirkii bidaacadaha ayaa ziyaaday roodhidii way ziyaaday shaahii uu ziyaaday markaasuu yidhi anuu warkaa ma haya buu yidhi anuu warkaygu waxa weeyaan calaynaa an nacbudahu kamaa amar aniga waxaa layga rabaa keliya inaan u caabudo siduu isagu igu amray wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad asagana waxaa laga rabaa inuu noo arsaaqo siduu isaguba noogu yaboohay razaaq waayo man huwa arazaaq allahu rabb alcaalamiin razaaq yarzuq alcaasi walaa yubaali caasigu arsaaqa umana aabba yeelo لك علي رزقك ولي عليك فريضة إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك حديث القدس إلهي بالله هذا كان فرائض بانكو صاري أنا كان أرزاقات هذا وانا ساري بإلهي عبدي لك علي رزقك ولي عليك فريضة أنا جو وحن كركي صاري بإلهي لي أرزاقات هذه أنا أرزاقات هذا بلغ عليه هذا كان كركي وحن صاري فرائض واجبات بانكو سيئي ومعرفة إلهي ugu horeyso إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك haddii adigu faraa'idaydi iyo waajibaadkayga aad ka tagta buu ilaahay ku leeyahay anuu arsaaqada kaa goosan maayo kii ilaahay caasiyaba haddii ilbaktinaysa ka waran haddii xubin jirka ka mida fadhiisanayso shaqada joojinayso see noloshu noqon lahayd adaacadda waxaa laga sheegi lahaa magaalada nairobi xaafadda islii 5,000 oo qof baa ilaahay xalay dhagihii kala noqday markii ilaahay caasiyeen sidee noloshu noqon lahayd bal ii sheega araggii uu ina siiyey waan ku caasinay maqalkii uu ina siiyey waan ku caasinay caafimaadkii uu ina siiyey waan ku caasinay dhallinyarnimadii buu ina siiyey waan ku caasinay rasiqii buu ina siiyey waan ku caasinay ibraahim aladham raxmatullaahi calayh ayaa inan yar baa u yimid oo ka yidhi yaa sheekh ibraahim anigu macsiye ma dayn karaya maxaan sameeyaa ii sheeg buu ka yidhi macsiyo ma dayn karayo cisyaan ma dayn karayo zine ma dayn karayo been ma dayn karayo khamri ma dayn karayo tumasho ma dayn karayo xaaraan ma dayn karayo maxaan sameeyaa wuxuu yidhi waxaad samaysay ma garanayo anugu ma qiil baan kuu raadiyaa buu yidhi ad ilahay ku caasada ad iga doondoonaysaa ma jiro buu yidhi qiilkaas sheekhaa doonta u teg sheekhku odhanaya ilaahay caasi haddaad kari weyday naftaadii muu jiraa waar ma jiraa ma jiro maxaan sameeyaa aday ku taallaa buu yidhi laakiin soo noqo mid baan ku odhane macsiye ma dayn karaysid ha ma dayn karayo naftii iyo shaydaankii baa iga qaalib noqday maxaa iga qaalib noqday naftii iyo shaydaankii iyo dhallinyarnimadii haye maxaan sameeyaa wuxuu yidhi dee caasi ilaahay laakiin mid baan ku odhan anigu 3 arrimood baan ku odhan ilaaha aad caasinayso arsaaqadan aad cunaysa asagaa ku siiyey risqiisa dee u daa ha ka cunin biyaha ayaa ku siiyey allah hawada ilaahay baa ku siiyey bariiska ilaahay baa ku siiyey caanaha ilaahay baa ku siiyey cadka aad cunaysa ilaahay baa ku siiyey risqiisa u dhaaf marba haddaad tidhi casyaan ma dayn karayo dee risqiisa u daa dee maxaa ku noolaadaa buu ka yidhi dee siday kula noqotay buu yidhi inaad arsaaqadiisana aad ka cunto isagiina dib aad ugu caasido mid labaad baan kuugu dari buu yidhi dhulkan aad ku joogto isagaa le uga kac dhulkan meel aan ahayn doondoono oo gal halkaan ilaahay ku soo caasi buu yidhi ma jirtaa dhulku waa dhul cirkuna waa cir gudahaan joogaa iyo dibaddaan joogaa ma jirto dadkao dhan gudaha un bay joogaan mid baan maalin number telefoon kala hadlo numberka caadiga wuxuu idhi iska goo buu yidhi sheekh lacag badan buu iga goosanayaaye war maxaa dhacayo wuxuu idhi dibaddaan joogaa buu ihi dibadda markaasaan ku idhi dibad iyo guda ma jiraane kulligeen gudahan ku wada jirnaa gudaha adduunka dhanba waa hal qol keliya halkaa qolka ilaahay baa iska leh war hadda soomaaliya ka wada imanay markaan ka soo tegayna dalkan ma caalam kalaa lagaa furood soo gashay mise dhulkii unbuu ahaa cirkuna cirkumaad hoo socotay 15 saacaan diyaarad la soconnay 15 saac non stop samaduna sidaan bay dusheeda u taallay dhulkuna sidaan buu hoosta u yaallay
هل قل وين الديود قل كأياس كله إلهي إن لقوا عابدا لقوا تلقلين إن لقوا عاصي لقوا ما تلقلين حردول كان يسقى عليه هدات العصيان كي سمد دين كريو وقكع دول كلا كو عاصي ودول كلا دون ده ما دعي كرتو ما جرتو ده هذا دول كي سيكو جوجا سيداد وقو عاصين كرتابو كيدي تصدحات ما كوكو داريه ميل وسن إلهي وسن كوكو أركين كله ما هلكا كو عاصي ما جرتا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار هبين مالين افتين مدو سريسو موجي عليم بذات الصدور يعلم السر وأخفى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سميع بصير ويان مخلوق ودن هدي أي ميلس ودا تاغان أي بريان وأفكوغ إلهي كبريان ومثل بباهيدي سإلهي وشيكتو مثل بإلهي سوتكي سوا مغليا باهيدي سن إلهي ندبولو أودي كرا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا عبادي يا عبادي الضمه يجيو بإلهين ليهي يا عبادي سبحان الله نحريس يوسف الأرسنة قل يا عبادي الذين أسرفوا كوي مسرفين تاها إيه نفتو دا كوحد قدبي إيه أفر الله باتك ساعة معصيتي قفلت كجري هدي أقوير يا عبادي كوا صالحين تتكنين محاضو ملين مقعوق يري لها فرعون وأوجيها إنه قال يهي إنه قال لما كل من يوجيها إنه أهل النار يهي وأوجيها أي موسى مركو أدري كلها فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذه فرعون ولايه موسى هذا اللي يرد بعسا كل هذا لقى يا بينه وانتوبوا إلهينا كبقوا صون نغضي وفرعون أولي الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي قال لبني إسرائيل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فرعون وكبروق وقو هذا الله لك وهلا يي هذه مركي موسى الله دري إلهي موسى كل يهي هذا الجلع سنكون هذا تحود الدبرية كوي مسرفين تاها قل يا عبادي الذين أسرفوا سبب النزول كي يقول عقوش إمام أحمد وحشي نكي قاتل حمزة نكي حمزة دلي ما كمر كون النبي صلى عليه الصلاة والسلام أيو تبي وداوي وحشي هذا كاب حسد الله يقول وكادونتي كذبتك ويرى حيبتها لغو سو غاري سغو دمعسن با انو كسو طلابه جزيره العرب وارض الحبشه وسو غدبو مركا ساله وحشي ها رسولك الله بان كا ويديو كو يدايا سبحان الله انيكا ما انو حمزه دلي وأذيركي دلي أو مشركة أو زنيستي صوت دين دين شيء يسمع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يدو شريعة محمد يدو أي شيء يسو قفك إلهي غيرك عابدا إن نف بني آدننا قويا إيه الزنيسا إن عذابك الله بالله بايو إن تاب أني قوان كل عيه بل أرض محمد يسوي دي يبود الرخصة بوس أن دين الإسلام كسوق لما الله يهيا مركب الصحابة دي صون نقدين رسول كم كوجي مادين عليه الصلاة والسلام مركز النبي أقري إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. آياته قرآن كمركي وحشي اللي كر أخرينا وحول إلا من تاب وشرد ككوبات وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شروط سوي بدنته بالله أنكم مبوحين كريم بويدي شروط بدن بلس دبر دقة ماشي ويسون نقدر هذا آيات قرآن النبي صلى قري إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله إلهي لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مرقي آيات اللي قد الأخرين وحيري هذا أرى بعد مشيئة الله إلهي كود دونا ماشي كود جرتي بالله أنك إلهي الدم بقى إنه دافع ما بدوني بويري هاي النسوق عجيب. وأني كأني كنا هذا محمد يا أبو بكر يا عمر يا ماها حسن يا حسين ماها وأيو ووحشي وقاتل حمزة نجي حمزة دلي وياه مال انت النبي قادر كيلا دلي عليه الصلاة والسلام أنصار ميت كوجا الروسنيين النبي قال لي واكن أدير كان ميت كيسي وهو أركي هالكاس على قد اللاعية حمزة على شيء زين لك لد اللاعية أيام مدغريها أوسكينا بنان كان لقول شيرية كريه سي بيركي سنة عند لقول دادي مركز النبي أرجع جحي عليه الصلاة والسلام مركز الصحابة كويري ولا شيء سفيا صاص عطوه كأرجع جحي سي هري اسكو عليهم مركو ضدوا أبو رسول كويري قيس ينتو طوري لأن للما كدادة الرسول كنا مركز سويري يا عمي أدركي ما مغلى يا أو شهيد خلاص وحوري تضبعات قريشة أنا وين أنكو أرجع أبو رسول كويري مركبا القرآن كاسودك وحيقة حي سودك تعايد الشيء فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بالنبي قال له يدي هذا أرجو سنيسد وهذا أركا أو أرجو ديسد بإلهي كويدي ده مدون باللقات دي لا أدوكنا مدون دشوا بإلهي كويدي هذا صبرتين هي صابرين تصبر كابو خير بدن بإلهي كويدي يعني حماسة إنكم قادم بلليه ليتخذ منكم شهداء أنك ضمعني بإلهي قاركين إن دين تقول شهيدان أدرك وحكم النقصامين وشهيد ويان وشهيد أنك الدورين بإلهي كويريه أديك وحبك من ناقص من وحبك وزيادة لقى مرة بإني طولني ماذا يقبيالد وأيكو قاده هذا دو أرجودي سنة دمدون باللقات دي لمدون دشوا هذا صبرتان بإلهي يري صابرين تصبر كأو خير بدن بإلهي كويري وحمزة نكي دلي ويا نك ونبي آياتها القرآن كل بايدو صغرى آيات دي قدام بيسو نبي يقول صغرى وحي هيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آيات القرآن كمرك الله كان يلقوا آخر يدوشيسا أما هذا فنعم تنا نقبل بيودي مركزان مكلا سوق لي مركب النبي الله هركان عليه الصلاة والسلام مركز النبي قرتي سكوا شهاتي مركب النبي يقول بل أذرك حمزة صاد مالين تودي شنو كشيك مركو كشيك يبي للمكدادة رسولك عليه الصلاة والسلام مركز يريد وهاجا وحشي إلهي با هداية كولا دونا كسو هديه مركا وجيجو كأركا أدرك من حسوسنا ياي مركا حلقات كسدا صحابة إذا أن روح برايو هذا هو حاجة دم يقفل يسوي عنده سهدي أركان وحي حسوسنا ين أدركي عنده سويني أركت مجعلين قلبي سن النار إنه قال مجعلين هذا طبيعة الأنبياء سيدا عنده سو وحشي إني أركان أيسن أربين أدركي بكو حسوسنا يا كذلك قلبك محمد مربين إنه وحشي نار وكدعو فإلهي هنو توبت كأنه سقى إن أرزاقيا هذا ندتك إلهي وعاصنا يا المانت وحنا سنة سقى النسيي
هذا نوع عاصينا يا عبادي با إلهي لا يحي كيني هوري كينا دمبي جيني إنسجين كيني نيقو الله كعبسي قبضن هذا سيدي سيقا عبستان با إلهي لا يحي ملكي جيجا وحبكم الزيادة نيسان ملكي جيجا وحبكم الزيادة نيسان إبليس عليه اللعنة هذا ذي عاصدان با إلهي على أفجر قلب رجل واحد منكم علماء الحديث قالوا يكون شيئا وإبليس عليه اللعنة سيد إبليس أود إلهي إسقو يقانو وأمرك إلهي أديدي وإلهي أعاصي هذا إلهي وضع عاصدان بإلهي نليهي ملكي جيجا يأود يدو حبك مد ما ينبى إلهي إلهي إنك أبهان لا تنفعه الطاعة ولا تضره معصية ومناجات كي نبينا عليه الصلاة والسلام مركو إلهي إلا مناجون يو وكدو عيسان جري وحاكم دهيد يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك إنك أنت الوهاب يا من لا تضره الذنوب يا من لا تضره الذنوب كي أي ذنوبتم أيسن وحبك دمينو مغفرة الدومها ودن بدافينا وحبا أيسن كدمينو ومناجات مركو النبي يقول إلا مناجون يو دعين قابكو دعاء سنجري مركا طاعتنا إلهي وحبا ومزيادسه معصيتنا حبا كما نقصته من عمل صالحا فلنفسه من جاهد فإنما يجاهد لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من شكر فإنما يشكر لنفسه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم بالقرآن كوفيرسو نفت هذا هذا هنونتنا نفت هذا هنونتي من تزكى فإنما يتزكى لنفسه نيجا نفتي سحمانتا كالطهرة ملاها حنحن النفط أفعنين كإلالية مساجد يا خير كلي ماذا نفتيسا الدنبيق نفتيسا كقميرا طاعتي عبادتي يا مناجاتك حلقاتك كقميرا نفتيسو طهري با إلهي يدي من عمل صالحا فلنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه كي شكر يا إلهي نفتيسو شكر يا إلهي حبو مقبنا مركا إلهي تبارك وتعالى إنك إلهي أباها nolosha adduunyada maxaa markaa laynoo siiyey inaad ilaahay aad kula baayac mushtaraysa lagu siiyey araggu waa nicmad maqalku waa nicmad waqtigu waa nicmad islaamnimadu waa nicmad bini aadantinimadu waa nicmad caafimaadku waa nicmad arsaaqadu waa nicmad habeenku waa nicmad maalintu waa nicmad dhallinyarnimadu waa nicmad caqligu waa nicmad caafimaadku waa nicmad لحياتك لو قد ما يسترى ونعمد أرزاقته ونعمد أمنك ونعمد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عيسى ابن مريم عليه السلام أيا أركنن لبدا قعمد هلكا كوغوان لبدا لغودنا هلكا كوغوان إن دلأوا وحبنا عن أركين جركي سنة يكون على برس أو وضعت وكدو عيسنا يوله إلها وحن كو حمديا بلا يبدا وأضومه سكود على يقبد باديانيك وانكي وان لبدا لغودنا هلكا ku go'an labada gacmoodna inta ku go'an indha aan lahayn waxba arkaynin jirkiisana waxa ku dhacday baras wada cad yahay waxaanu ku ducaysanayay uu leeyahay ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaaye badan oo adoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyay baan ku mahadiyaa buu leeyahay nabiyullaahi ciisa alayhi salaam baa ku yiri oo adiga balaayada ka maqan ee dadka kale ku dhacday ilaahay ka magan galaysa maxay tahay buu yiri wuxuu yiri waxa weeyaan dad baa jira buu yiri qalbi bay leeyihiin qalbiga ilaahay kuma hayaan cabsidiisa iyo jacayladiisa carabna way leeyihiin carabkoogana ilaahay kuma xasuustaan ama aniga ilaahay wuxuu isiiyay qalban shaakiran wa lisaanan dhaakiran baa ilaahay isiiyay qalban shaakiran qalbi wuxuu ilaahay isiiyay mar walba mahadnaqaya iyo carab wuxuu ilaahay isiiyay dhaakira oo mar walba xuska ilaahay ku qoyan qofka qalbi la siiyay ee qalbigiisa ilaahay maanta aan ku hayn cabsidiisa maxabadiisa jacayladiisa aan ku hayn iyo qofka carab la siiyay ee carabkiisa ilaahay aan ku xasuusanayn
wax kale uu kaga sheekaysanaya miyayna balaaya ku dhicin buu yidhi haa way ku dhacday taasaan ilaahay ka magan galayaa buu yidhi ilaahay baan aniga taa iga ilaaliyey buu yidhi masiibada adduunyada ugu weyn ma taqaanaan waa dhimasho bal wax ka weyn ma jirtaa waxa adduunyada masaa'ib dadka bini aadamka ku dhacda hebel reer islaantii baa ka xanuunsatay waa masiibo aqalkii baa ka gubtay waa masiibo dalkii baa ka baaba'ay waa masiibo ilmihii baa ka waashay waa masiibo ganacsigii baaci mushtarkii baa dab ka qabsadoo ka baaba'ay waa masiibo imtixaankiibuu ku dhacay waa masiibo gaadhi baa la dhacay oo lug iyo gacan baa jabtay waa masiibo laakiin masaa'ibtaasoo dhan waa laga kacaa aqal baa ka gubtay aqal berri waa iska dhisan karaa ilmaa ka waashay ka kalea ilaahay uu caafimaadin karaa isagii baa lug ka jabtay lugta uu ka kami karaa tijaaraddii baa ka baaba'day tijaaradda uu ka soo kaban karaa xanuun baa ku dhacay waa iska daaweyn karaa laakiin uu dhintay ma ka soo kici karaa ma ka soo kici karaa idan masaa'ibta adduunyada taalla masiibada ugu weyn waa geeri aakhire marka la joogana masaa'ibta aakhirada taalla masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla naarka walciyaadu billaah allah inaga badbaadiya naarta amiin dhahada markii naarta ilaahay uu ku ekaysiiyey galaan waxa qur-aanka ilaahay uu noogaga warramay inay 40 sannadood malaga maalig la yidhaah ay u dhawaaqayaan maxay ku dhawaaqayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk wanaadow yaa maaliku malik waa malaga furaha naaraha hayo weeyaan malagaas weligii ma qoslin baa la yidhi sidii loo abuuray shakalka lagu abuuray bilaa qosol ayuu ku taagan yahay baa la yidhi malagaasay u dhawaaqayaan 40 sannadood ay leeyihin yaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuka rabbigaa waxaad naga gaadhsiisaa naftaba ha nagaga jaro waxay dhimashada u tamaninayaan waayo cadaabka iyo dhibaatada naarta ku dhex haysata ayaa ka weyn dhimashada afartan sano kadib ayuu u jawaabayaa ayuu leeyahay qaala inakum maakithuun dhimasho ma jirto weligiin iyo allihiin halkaa baad ku waaraysaan ood ku jiraysaan buu leeyahy dhimasho way dhammaatay khalaas adhabtum طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون راحة ديني تمشى ديني جنة ديني حرية ديني الدون كاتكو سوق عادتين لحدن كي سنة أدوية أياد حقيقة مودين وحينكو سوق قديمتين وحن عذاب هين ما أنت مليه ديني هل كابد ولي كجري سامبوليه marka maanta adduunyaan joognaa baritool aakhiraan tagaynaa arinii maada qadamta lihada alyowm addoommaha ilaahay ka mida ilaahay calaa ru'uusi alkhalaa'iq buu kala soo dhex baxayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoon loo nicmeeyey buu ahaa markaasuu ilaahay qirsiinayaa nicamtii oo dhan uu leeyahay addoonkii hebel hebel ahaa ma tihid haa waa nahay addoonkaan u nicmeeyey ma tihid haa waa nahay addoonkan caafimaadka siiyey ma tihid haa waa nahay addoonkan awlaadda siiyey ma tihid haa waa nahay maalintan inay imanayso waan kuu sheegee arinii maadaa qadamta lihada alyowm waxaad maanta agtayda soo dhigatay hore u soo marsatay ee aakhiradaada kaaga soo horreeyey itus baa ilaahay ku odhan doonaa waaba addoon wax khayra haba yaraatay aakhiradiisa aan u qadiman weeyaan wixiisii adduunyadu ku soo isticmaalay caqligiisii adduunku uu isticmaalay dhallinyarnimadiisii adduunyadu ku isticmaalay xorriyaddiisii adduunyadu ku isticmaalay shahawaadkiisii adduunyada ayuu ku gutay intuu adduunyada joogay waxba xaaraanba kama ahaynba wixiisii halkan uu ku qadimtay khalaas markaasuu le yaa rabbi waa runta adaa ii abuurtay adaa arsaaqadda i siiyey awlaadda adiga ay siiyey adaa ii nicmeeyey adduunyadii aadin siisay baa i mashquulisay intaadin siisay iyadoo in ka badana
ayaan adduunyadii kaga imidee ilaahu dib ii celi han soo qaato han kula imaadee ma la soo qaadan karaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib maada yacmal فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بتعالى هذا مر لباد بوكو علن إلهي جل وعلا سواش جوابتي بو كان يا إلهي مركابو كسي جيسان يا يولي هاي خذوه قادبوا إلهي ورنا يا ملائكتي دي ملائك زبانية الليلة أو جركوغو وكسمي سيهاي النار جركي سي قبنا يا يوري ابن عباس ماشي قبطان بو يسوقو أيسا لفيه هيكل آيا هرايا من دمنا يدمش ويدمات كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب جركي مركو كدعبا جرك لا مركيب الله سو صاريا سو بخايا دمشنا ما جرتو markaasuu argagaxaya meeshii la qabtay way go'day gacanta la qabtay way go'day mid degtuu qabtay way go'day mid xaqan uu qabtay way go'day markaasuu ala tarxamuun malaa'iktii buu leeyahay madina xariisanayn waa sida naxariis ma lihidino markaasay oranayaan arhamur raahimiin kiiba kuma naxariisane naxariisad naga sugaysa anaga maxay tahay khuduuhu faghulluuh ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه محل عذاب يعني إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما عرف حق المعرفة إلهي عظمتي سقلبي سمي قلن جنة نحرست إلهي بالله قلا ثم وحا لغو قلا إيمان نارتا وحا لغا قبت بادا إلهي نحرست لغا قبت بادا ثم وحا لغا قبت بادا وإيمان ما الله بحسنين ما جرتو مدنا يرى الدنيا الجوغنا وحا الله ينو كيني ولا ليال إنا فهمنا ويان مسلم dadka kala sidooda ha u fikirin adigu waad ka duwan tahay adigu inaka jannadeenu waa aakhiro weeyaan shahwadeena adduunyada ku gudan kari mayna inaku addunya sijnu lmuumin jeel baad ku jirtaa jeel ninka jeel ku jira hamigiisu waa maxay goormaad ka bixi ninka la xidhay 5 سنة الله حري أما 10 سنة الله حري والعياذ بالله كسوقات همي جيسوا محي قرمات كبح جلك قور كفكر مايو عيال جيسي كفكر مايو شقة كفكر مايو ضوف كفكر مايو هو الوالكيس وقوين ومحي إله ما شمرون كاسر لما دلين قد لقى مجرين قعن لقى مقوين كليه وحل لقى قال حريته ما لقى قبته بس qofka la xidhay maxaa laga xidhaa bali sheega xorriyadun baa laga xidhay cuntadii waa la siin hawadii uu haystaa biyihii uu haystaa weliba waxaa la leeyahay iska naso kubaddii baa la odhanayaa ciyaar weliba diintii baad ku baran kartaa waxaasoo dhan uma muuqdaan waxa u muuqda uun goormaa jeelkan lagaa saariyo xorriyaddaadii lagu soo celin الدنيا سجن المؤمن وجنة سجن المؤمن ومؤمنك ومؤمنك وحاو دون وإيجين وحاو الربا أركي كرين وحاو نفط دون ما دقي سكرو وحاو نفط دون تبعني كرو ماشى نفط عي دون تمجي كرو مر والبوح لي أنا الدون إلهي بانا هي إلهي بانا برقي سمر والبغادنا يا سيدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه خرجك أيا غلام كيسي خرجك أوكينا أيا عنت أوكينا مالين مرقاس أبو بكر عنت دي اللقمة مركو كبدي أيا غلام كيسي باكوير يا خليفة يا أبا بكر أول وادي ويدين جرت أورنجر تعطاها لك كنتي ما أنت واد سكع عنتها ما دي ويديسي مركز الحاجات كنتي زمن جاهلي ضد أنو صوفها لي فال ومش غايد أن كل هذا ما أنت مش غايد دي السوسي يو
cuntadana markaa mushqaayadii bay ka timid buu yidhi abubakarna markaa luqmad baa calooshiisa gaadhay fartuu afka geliyey abubakar sidiiq saasuu farta afka u geliyey markaa buu iska matajiyey haddana biyuu ka baday uu iska matajiyey haddana uu ku celiyey markaasaa lagu yidhi yaa abaabakar luqmaddii xaaraanta ahayd way kaa soo dhacdee joogso wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi hadday caloosha wax kaga hadhi lahaayeen oo ay diiddo inay soo baxdo naftoo la soo baxda mooyaane naftana waan la soo saari lahaa buu yidhi maanoo xadiidkii nabigeenna maqlay calayhi salaatu wasalaam kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi naar jidh kasta oo naar ku kor jidh kasta oo xaaraan ku koro buu rasuulku yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay ayaa luqmad xaaraan caloosheeda ku haysan buu yidhi innaga zamankeenna halkan maraynaa waxaan ku cuninba gaajada unbaa xaaraana bay ku odhan soomaalidu iminka gaajada unbaa xaaraana gaajada xalaal mirad noqo ilaahay caabud calooshaada xor uma tihid oo maqalka xor uma tihid dhallinyaradu wax kasta iminka iska dhegaystaan haddii loo sheego la war waxaa diintu ma ogolaan wuxuu ku odhanayaa ma ikhtiyaarkaad naga qaadaysaan ikhtiyaar baan leenahay yaa ikhtiyaar baad leedahay kaa yidhi haddaad ikhtiyaar leedahay maxaad la dhiman maxaad la gaboobi maxaad la bukooni maxaad la daali maxaad la xanuunsan maxaad la murugoon maxaad la baahan tahay maxaad la buusbuusi maxaad musqusha u geli haddaad xor tahay musqushaa gelina qormuunka kaa imanaya iska jooji ma joojin kartaa ma joojin karno kulligeen wada bulaacad socotaan nahay bulaacad socotoo lugaynaysa u fiirsa musqusha markaan gallo kulligeen saasaan idhahnaa maxaa ka uraaya bal sheeg ma adhi iyo geel baa ku shubay meesha mise adaa dhigay waxaa halkaa ku jira halkan kugu jira adiga ilaahay baa ina asturay mooyaane nin walba halkaa waxa calooshiisa ku jira haddii carfiga caloosha ku jira urta bannaanka lagaaga soo saari lahaa ka warran sidee ummadda u dhex socon lahayd markaasay bini aadamku wax ismoodayaan ka warran wax ismoodayaan oo sanka taagayaan qarmuunka calooshaada ku jira oo keliya haddii naqaska kaarboonku dibadda kaaga soo bixi lahaa ka warran maxaa lagu odhan lahaa war kaniya maanta sii qarmuuna kana maanta war balorda musqusha gal baa odhan lahaa adu waxbaa kaa soo waraya ziyaadee ilaahay laakiin waa sataar u ina asturay عيبتني بو قريي يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مركو إله إلا مناجونا يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل إله قروح ليدي بنانك أصو ساريو والله عيبتيدا نقصان تيدا أنيك هدادي أقال لها يدين إما دقيستين لكن سترق إلهي بان يقولها الله يا إن يكون سترق إلهي بان مسكيته كفر دان يا الرحمة إلهي شيخ يحيى بن معاذ بها محدثين تبوها تابعين مركو دنتي أيام منام بالغو أركب منام دتك ون وناكسنا ويسركي الموقتها دتك إيمك دوف بكل رياض دوف سوق بدي كتل أبو تلياني قالوا كل ريون مد مركزوا أنو والله وان أركانو يوروب قالوا وسيس عضايا سلامة والرياض هذا ركت من روم بعد وحي مسكح هذا كجرون بهابينك شيطان كوكاسو دحساري دتي وناكسنا جنة أركيين وقيامها أركيين وإلهي وجهي سي أركيين علماء قاركود ركبة إلهي تدي سأركي هابينك مركز استحضام ركبة هابين والبنبي محمد لكل ما عليه الصلاة والسلام يحيى بن معاذ بكمدها مركو جيري ودي أيام منام لقو أركول لقول يا شيخ يحيى ننع واعدة ومحدثة وزاهدة وأمد جعشها هذا هيدا ما فعل الله بك محاد ربك كلكلة نوشك بالقيدي مركز سوري فضحت والله فضح وكف فضح حضوب وكف فضح حضوب بنك قيامة وإلهي يقولي سوقبت يحيى كان والله هرجي يا إلهي مركز إلهي يقولي شيخا حن ما أنت عملك أكتيد الصوت دقتي إد سلادة وتكبت بهذا شيخ بالويدي بودي مركزان يا رب لحية صد حج
ayaan carafo joogsaday oo agtaada soo dhigtay markaasaa ilaahay igu yidhi midna kaamaan aqbalin sheeg camal kale markaasaan idhi yaa rabbi 63,000 oo khatma qur'aaniya ayaan soo khatiman wataa markaasaa lagu yidhi midna kaamaan aqbalin waan kugu soo celiyey sheeg wax kale markaasaan dhulka eegay markaasaan isiri dee camalkeen kaloo sheeganba labadii camale islahaa waad ugu rajo fiican tahay waa 36 xaju carafa istaagay iyo 63,000 oo khatmat alqur'aan intiiba markii laygu soo celiyey la yidhi lagaama aqbalin laygu yidhi ayaan madaxa ganoodiyey oo laygu yidhi welibana kor u taag madaxaago camalka aad agtayda soo dhigatay maanta aad leedahay waad ku badbaadaysaa itus markaasaan idhi yaa rabbi hee anu waxba ma wato waxba ma soo qaadan ba hee adigaan ku imid bas waxaan garanayay inaan u tagayo rab kariima ghafuura shakuur raxiim sataar xaliim latiif cafuwun ghafuur rabbiga sifaat kaale inaan la kulmaayo ayaan garanayo waxba ma watee yaa rabbi anigu adaan ku imid bas markaasaa ilaahay gu yidhi haddaad ii timidee waa kuu dembi dhaafee jannada gal markaa raxmadda ilaahay baan jannada ku galay dadka u sheegay buu yidhi hadday waa taabiciintii waa zuhaadii waa muxadisiintii waa salafu haadihi alumma xasan albasri maantaan akhrisanayay maanta xasan albasri wuxuu yidhi 30 sano ma qoslin 40 sanana hadal maa laa yacni oo kaftana kuma hadal buu yidhi inagu maalintii imse jeer baan kaftannaa imisaan caytamaynaa imisaan ummad xamanaynaa imisaan waxaan doonna eegaynaa imisaan waxaan doonna maqlaynaa laqad adraktu aqwaaman waxaan soo gaadhay aqwaam buuhi aqwaam waxaan soo gaadhay waa saxaabadii rasuulka raggaan ka soo gaadhay markaan la joogay waxaan ku dhex ahaa buu yidhi tuug baan ku dhex ahaa buuhi tuug waa xasan albasri baa hadalkaa leh ayna naxnu maanta halkeen joognaa maanta ilaahay han u toobad keenno zaman adag baan ku jirnaa zaman adag muslimiinta waxun baa ka sii dhacaya muslimka maanta mar iyaku laysku diro mar iyaku ay iscaayaan iyo mar iyaku ay isdhammeeyaan waabaan ka sii xag jirnaa inakuna soomaali haddaan nahay wixii dalkeenna 40 sano ka horaan ku baabi'inay ayaa ilaa iminka dalkeenni iyo dadkeenni ka dhex socda qabyaalad soomaali diintiisu waa maxay waa qabyaalad waa ta halkaa ina dhigtay weeyaan waa ta ummadihii inaga reebtay weeyaan طريقة الوحيد طريقة كلية ما أنت أمد أي كبت باديسو وطريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام الرجوع إلى الدين لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أمدا آخر كيكو ما يصلح حيثو إلا أول كيكو محكوها قاقي موياني أول كي أمدا محكوها قاقي يقين يزهد ما يمدكوها قاقتي آخر كي أمدا محكو فسادينا البخل وطول الأمل بخل إنه قفكو dhaqaalihiisii caqligiisii cilmigiisii wakhtigiisii uu kala baqay aakhiradiisii iyo diintiisii iyo inuu ku noolaado tuulul amal hidideela dheeri waan noolaan doonaa waan jiri doonaa waan gaadhi doonaa waan dhisi doonaa war waxaasi shaqadaada maahayna waxaa kaaga horraysa waan dhiman doonaa berri tola caawa gabalku ii dhici maayo aniga waa inaad tidhahdaa dariiqadaas rujuuc ila diin baa la rabaa ummadda in lagu soo celiyo maanta طريقة الوحيدة طريقة كلية أمدو أي دينتا كسو نغن كرتا أي أمدو دينتا كوكب سنكرتا ومعي وطريقة الدعوة والعلم لبدا أو ودا الصعدة أو كلا الصعدة معها لبدا سو ودا الصعدة أمدو كوبت بعدين كرنا مانتا إن المسلم كا داتك مسلمين تواوينا أي جوغنا إن دعوة كسو قبنو دعوة ومحي ummadda waxaan uga yeedhaynaa shirkigaan uga yeedhaynaa iimaankaan ugu yeedhaynaa khafladaan uga yeedhaynaa dikrigaan ugu yeedhaynaa jahligaan uga yeedhaynaa cilmigaan ugu yeedhaynaa dulmigaan uga yeedhaynaa ixsaanka iyo cadaaladaan uga yeedhaynaa assumcatu walriyaa baan uga yeedhaynaa ikhlaaskaan ugu yeedhaynaa dadaalka adduunyada ay ummaddu ay ku dhex dhacday ee dharaariya habeen adduunya laga fikirayo ayaan ka soo dhex qabanaynaa dadaalka diintaan ummadda ugu yeedhaynaa suuqaan uga yeedhaynaa masaajidaan ugu yeedhaynaa adduunyadaan uga yeedhaynaa
آخرة ugu yeedhaynaa jahaladu caamada iyo siyaasiyiinta iyo qabyaalis iyo casabiyiinta ay ku xidhan yihiin ayaan uga yeedhaynaa caamada waxaa leena kaalay culimada ku xidhma culimadaad ku daba liibaanaysaan هذا هو طريقة الدعوة إن الدين تفض دعوة أو صبابة إن الدين باقي نقطة علمك أو صبابة haddaan doonayno zamankan maanta aan joogno in dadka muslimiintuna masaajidda u soo noqdaan gaaladana intii ilaahay hidaayadda ugu talagalay ay soo hanuunto islaamnimaduna ay quwad yeelato haddaan doonayno waa inaan dacwadda ka shaqaynaa waa inaan ilaahay dartii maalkeenna nafteenna wakhtigeenna aan ku bixinaa dacwaddu waa maxay haddaan soo marnay dacwadda hadda maaha dacwatani tan waa wacdi weyn waa wacdi waa tadriis waa tacliim waa tadkiir dacwadu waxa weeyaan waa maqaaxiyihii iminka jawladaan soo samaynayna magaxood baa maqaaxiya magacoogii shaah macaan dhallinyaradeenii oo aan warba u haynba qaarkood aakhiro inay aakhira jirtaba kama war hayaanba dacwad taasa leh dacwad waa taas miskiidka haddaad kitaab ka marinayso waa tacliim miskiidka haddaad muxaadaro ka jeedinayso waa tacliim miskiidka beerda ka jeedinayso waa tacliim dacwad waa maxay waa jawlaad inna laka fi nnahaari sabxan طawiila dabaal dheer baa ku ahaataa nebiga lagu yidhi maalintii dabaal dheer aayaddu waa maki awaa'il alaayaat alatii unzilat cala almustafa fi xayaati makiya fii suurati almuzammil weeyaan magaalada maka bad ma leh badda uu nebigu dhex dabaalanaya waa baddeeyey waa mujtamaca ninka lugaynaya berriga lugaynaya iyo ninka bad ku dhex jira ee dabaalanaya isku socod maaha ninka berriga lugaynaya hadduu daalo cadceeddu ay qabato geed hadh macaan buu eegan oo ku nasan cadceeddu markay ka jabtana uu iska carraabi soo sidaa maaha waa sayr baa la dhahaa u socda ka bad ku jira ee dabaalanaya dabaasha mar keliya uu joojin karaa waa markuu badda ka baxo hadduu isagoo badweynta ku jira uu dabaasha joojiye maxaa dhacay inna laka fi nnahaari sabxan 23 sana nebiga lagu yidhi dadaal waxaa nebiga la siiyo la amray laga cabiray dabaal ha seexan ha nasan ha murugo ha farxin ha qoslin saxaabadiisa kolkuu la jooga uu yadhoo la caddaynayay bas yadhoo la caddaynayay waqtigii baa noo dhowmaa jazaaka allah khayr waxaa laga cabiray nebiga sal alla alay slam dadaalkiisii dabaasha goormuu ka baxay maalintii sankaraadku qabtay ee faaduma ay tidhi waa karba abataah wuxuu yidhi laysa calaa abiiki karabun bacda alyowm yaa faaduma aabbaha maanta kurba iyo dhibaato ugu dambaysay buu yidhi khalaas baddii waan ka soo baxay weeyaan iminka khalaas ila arafiiqi alaclaa ilaa jannati alfirdows maanta ay ugu dambaysay buu yidhi dhibaato dambe khalaas haddaan doonayno dacwadda walaalayaal dadka inaan ku dadaalno weeyaan haddaan doonayno ajyaal dadka soo socda maanta culammadu waa farkuturis dhakhtarradii culammada mid ka badan injineeradii culammadana siyaasiyiintii culammadana soomaalidu horta ilaa ka yar baa siyaasiya iska daa wax kale maadaama culammadu ay mujtamaca ku yar tahay waxaad ogaataa hoos baan u soconnaa inta culammada rabbaaniyiinta ee ilaahay ku xidhan ee ummadda ilaahay xaggiisa u jeedinaysa ay nagu yar tahay ee shareecadda inoo haysa inta ay yar yihiin ee tiradoodu tiro badan yahay hoos baan u soconnaayo ogaada waan indiraasaynaa ummaddu waxay ku noqotaa ummadnimo waa hadday cilmigayga diinta haysata weeyaan labadaasaa markaa loo baahan yahay dacwad iyo tacliim in dacwaddana laga shaqeeyo oo ilaahay dartii loo baxo haddaan ilaahay dartii 40 u baxno iyo haddaad 2 bilood baxdo iyo haddaad 40 baxdo maxaad ka soo shaqaynaysaa ma taqaanaa naftaadaad islaaxinaysaa suudaan 2009kii magaalada la yidhahdo salaym waa xadka u dhexeeya masar iyo suudaan ayaan joogay jamaacan la socday nin caalima ilaa imika ninka caalimka waan xasuustaa magaciisa sheekh saabir cali baa la odhan jiray
علامة خطيبة oo ilaahay uu siiyey quwata albalaaga walkalaam walfasaaxa ayaan gurigiisa ku buuqday miskiidku wuxuu qaadaa taqriiban ilaa 10 kun oo qof markaasaa jamaacaddii miskiidkaan nagu tidhi yaa jamaacata jabuuti dhegaysta masaajidkan 2 saaca subax uu buuxsami doonaa balaas waa la kala waayi hadda imika sii diyaar garooba masaajidka alaabtiina meel dhigta balaasa sii qabsada sidee ninka khatiibka halkan waxa looga yimaadaa 100 kilomitir ba khudbadiisa looga yimaadaa haynoogayahan ziyaarane daa'iman jamaacadada tartiibta waxaa ka mid ah ma nazaluu fi manzil hadday magaalo ama masjid ku degaan laabudda waa inay sheekha caalimka ziyaartaan gurigiisii baan ugu tagnay markaas jamaaca kuu joogtaa la yidhoo soo gala buu naga yidhi waan gallay khudbad buu warqadar ku diyaarsanayay waa khatiib weliba warqadda uu ku qortaa maahayna waa يعني يخطب بدون الورقة مركاسو نقول من أين مركاسو نقول من جيبوتي ويا جيبوتي ها طريقات صومرتين وعكيد واحد صومر جيبوتي صنعاء خرطوم إلى قرية هذا وحن كوي منه بس ما حد مسافة أنت على قاعد سوق شيء بودي بليش هيك مركاسان اللي وحن سوق لي لإصلاح أنفسنا maxaan u soo gallay sheekh waxaan u soconaa baan ku idhi liislaaxi anfusina uma buu yidhi walitadkiiri ikhwaanina iyo dadka walaalaha iyo muslimiintan inaan soo baraarujinno oo soo ziyaaranno uma waliixyaa'i juhda nebi calayhi salaatu wasalaam dadaalkii nebi maxamed uu ummadda uga tegay dhaxalka ahaana ee ummaddu ay culummada ku weecisay dhaxalkii caamaduna adduunye u jeesatayna inaan caamada u sheegno oon ku nidhaano dadaalka diinta ininkana caamay waa laynaga rabaa culummada la shaqeeya oo garab culummada siiya markaasuu yidhi kalaam cajiib wax kale uma iman wax kale intaa baan u soconnaa wuxuu yidhi ayaa inaga dambeeya waxayna siiya markaasaan idhi nin walba waa bimaalihi wa nafsihi cajiib wuu kacay sharaabkii buu noo dhigdhigay kolkaana cabnay buu naga yidhi bas waa ni iman maskiidka iska socda annagu waxaan leenahay ninkani سؤالها سيدو نو ويدي دقيقة تلو خطبة دي دنايت ببلو كسو دياري وتبليغ عجيب منبر كي مرة لي مركو فولي هذا الكيس وحو كبل عبي جماعة يقول تيمي ديبو لقوريقا وحي يقول يراد وحن كوير محاد الكوتي معدن وحي يقول يراد وحن نصعنا إصلاح النفط يده واتان أنكم أنت آن اللو سنة هيبول هذا علماء نهي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آيات انتو قبتيبو ساعد يا برد بكدغ خطبه جمعه إصلاح النفس نفت أول إصلاح يا وفرض عين على كل مسلم طبعا كن أوقفوا مسجدكم مصلينا سلامتو دبل كبح وكاسه طبعا كن أوقفوا مصلين تيا صلاة مركز لقى بحر أو جماعة وكون صلاة أمد يوردن waxaan ka wadaa war haddaad bax lagaa yidhaahdo ilaahay dartii u bax waxaad u baxaysaa islaaxa naftaada waxaad soo baranaysaa fadhiga miskiidka ayaan dhaweyto jamaacada 40 cisho noo soo noqotay Djibouti anuu markaska jooga ayaan ka yidhi waraado 40 maxaad ka soo faa'iidaan ka yidhi mid baa yidhi sheekh anuu salaadiiba haddaan bilaabay buu yidhi maalintii jamaacaddu xaafadda iga soo qaadeen baan salaadiiba ayaan bilaabay adna maxaad ka faa'iiday baan ku nidho kiina wuxuu yidhi anu salaada waan tukan jiree subaxa igu adka salaada subax bay igu adkayd buu yidhi salaadii subaxna hadda waan ii joogsato ima dhaafi doonta buu ilaahay idankii haddee toole adna maxaad ka faa'iidaan yidhi dacwado wuxuu yidhi anin qur-aanka igu adkaa buu yidhi horta xifdiga qur-aanka waan bilaabay juz camaya tabaarik baan soo dhameeyey buu yidhi waxaana iga ballana buu yidhi maanta markaan sidaa u noqdo qur-aanka inaan xafidon cilmiga barto halkaa markay marayso mid baa sii ooyey markaas war bal aamus aduha ooyina maxaad soo faa'iido waa la aamusin kari waayey markaa waan yaabnay annakii baa la ooynaba maxaa helay ninka ma xanuunsan yahay amiirkii baa nagu yidhi ma xanuunsanee u kaadiya markaasaan maxaad la ooydo maxaad ka soo faa'iido wuxuu yidhi anigu waxaan ahaa dhallinyarada mukhadaraadka isticmaala mukhadaraadku waad garanaysaan baan u malayn waxaan maanduuriyaha hooyadayda i dhashay baan dharbaaxa habeenkii la dhici jiray buu yidhi wixii baan hadda xasuusanayaa buu yidhi
قف والبهلك وكبك ما كسوبك سمسك كما سوبك سن هذا هو تغيير البيئة مددا بحلق ليها وحكى لماها بيئة غير وين بيئتنا تكون حجرتو يربدل ده إن شاء الله هدي لنا قد البنا وانبحينا إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا بس واحد لديهن مسكيت بري أنكو جوجنو أضيب عيديني ووعدي ناير مركو هريد وعدين إنسان آد بانو يردقي سنة لكن مركو الضمان كان نحنا بودي ومركبا نلو مركو قلق يبوك أتصوق على تاني لديهن يا إلهي درتو بحايا مركاسا كان نحنا بودي وعاني هذا بقى يدقي سوا كود أدير نيكو مركو دختر كتقول سوا حمد أحسو جرن أيا وحلو سمايا إربد ninka dhakhtarku meesha uu ku mudaayo maxaa lagu sii sameeyaa suuf yaa alcohol yar lagu tuujiyaa waa qabow wana macaan irbadina way daba taala soo ma hadduu yidhahda ka warran suufkaa yar aniga igu ekaysi ma bogsanaya maxaa la odhanayaa waar daawadu waxay ku jirtaa tee allah ina fahamsiiyo khayr baa inaga muuqda allah inii ziyaadiyo allah ina barakeeyo in sha allahu tacaala dadaalka diinta يا علمك يا دعوة إن كل من الصوديار ومنهن إن شاء الله جماعة هذا النيم هذا إن الله فريستان ودقي ستان ووقت جينا الله وحكسي سنة ديار ما ونهي دم بيجينا الله هداف دم بيجي والدين تنا الله هداف دين تا الله إنه معانيو مرل كنا الله شافيو ميتات كنا الله ونحرسته اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله